kasta aad naga daawanaysaanba ku soo dhawaada qodobadii warka telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV idinka imanaya xaruntiisa magaalada Hargeysa. siyaasiga weyn ee Cali Maxamed Waran Cadde ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Gabiley. urur siyaasadeedka kaliya ee haweeney ka tahay gudoomiye ee NDP ayaa maanta xariga ka tartay xafiiskooda. isku dhacyo sababay dhimasho laba ruux ayaa maanta ka dhacay bartamaha Qaahira. ururka samafalka ee Tawfiiq ayaa maanta lacag qalin loogu sameeyay gabadh yar ay madaxa biyo kaga jiraan gudoonsiyay waalidkeed. duufaano laxaad leh ayaa ku dhuftay koonfurta dalka Australia. wasiirka tamarta ee dalka Ingiriiska ayaa iscasilay kadib markii xaaskiisu ay jabisay xeer kamid ah xeerarka u yaala wasaaraddiisa. qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay soo afjartay macaluushii ka taagneyd koonfurta Soomaaliya. daawadayaal kuwaas waa qaar kamid ah qodobada wararka ugu doorka roon leh haatan isagoo faahfaahsan. siyaasiga weyn ee Cali Maxamed Waran Cadde ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Gabiley. faahfaahinta warka waxaa inoo haya wariyahayaga Cabdirasaaq Hayaan Ilkacse. musharaxa jagada madaxweynenimo ee garab ka mid ah labada garab ee uu kala qaybsamay xisbiga mucaaridka ee Udub Cali Maxamed Waran Cadde iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayay ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Gabiley ee Gabiley. wafdigan oo soo gaaray gudaha magaalada Abaara 11 subaxnimo taageerayaashiisu kaga hor yimaadeen duleedka galbeedka ee magaalada iyadoo uu soo galbiyay gudaha magaalada kuna soo wareegeen suuqyada waaweyn ee dhexmaray kuwaasoo ku soo afmeeray xafiiska xisbiga Udub ee garabka Cali Waran Cadde halkaas oo kala hadlay taageerayaashiisa sida weyn u soo dhaweeyay. musharaxa oo halka ka hadlay ayaa ugu horeyn si weyn ugu mahadceliyay dadweynaha soo dhaweeyay isagoo sheegay in shakhsi ahaantii tani u tahay fursad sababtoo ah haduu yidhi waxa kale oo Cali Maxamed Waran Cadde hoosta ka xareeqay in haddii xisbigooda Udub mar labaad la doorto ay horumar Soomaaliland ka bilaabi doonaan gobolka Gabiley. musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka ee garabka Cali Waran Cadde oo hogaaminayo Axmed Xaaji Daahir oo isaguna halka ka hadlay ayaa farta ku fiiqay istaraatiijiyada Ilaahay dejiyay gobolka Gabiley waxaana xusayn mustaqbalka dhow ay Gabiley iyo Hargeysa iskaari doonaan. wasiirkii hore wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta Siciid Sulub Maxamed Xildhibaan Baaran iyo wasiirkii hore qoyska iyo arrimaha bulshada Faadimo Suudi oo iyaguna halka ka hadlay ayaa dhamaantood si weyn ugu mahadceliyay taageerayaasha sida weyn u soo dhaweeyay wafdigoodan iyo taageerayaashii xisbigooda Udub ee doorashooyinkii dalka ka soo qabsoomay. xisbigan ayaa xisbigii saddexaad ee toddobaad gudihii u yimaada magaalada Gabiley howlo la xidhiidha sidii loo hanti lahaa kalsoonida shacabka reer Gabiley iyadoo in dawaalada ay isku weydaaranayeen asxaabta iyo ururada guud ahaan gobolka iyo degmooyinka dalka oo Cabdirasaaq Ilkacse Bulsho TV magaalada Gabiley. urur siyaasadeedka kaliya ee haweeney ka tahay gudoomiye ee NDP ayaa maanta xariga ka tartay xafiiskooda magaalada Boorame. waxa warkaasi nooga soo diray magaalada Boorame wariyahayaga Cabdifataax Axmed.
waxaa maanta magaaladan Boorama si weyn loogu soo dhaweeyay madaxda urur siyaasadeedka nabadda dimuqraadiyadda iyo barwaaqada oo loo soo gaabiyo NDP waxaana duleedka magaaladan Boorama kaga hortagay taageerayaal aad u fara badan kuwaas oo u soo galbiyay gudaha magaaladan Boorama madaxda urur siyaasadeedkan NDP markii ay soo gaareen magaaladan Boorama waxay xariga ka jareen xafiiska ururkooda ku yeelan doono gudaha magaaladan Boorama kadibna waxay bulshada qaybaheeda kala duwan kula kulmeen hotelka ee magaaladan Boorama halkaasoo ay ugu jeediyeen khudbado ku aadan ajandayaashooda siyaasadeed haddii ay ku guuleystaan mustaqbalka dhow doorashada ka dhici doonta Somaliland waxaa madashan ugu horeen ka hadashay gudoomiyaha urur siyaasadeedkan NDP Marwo Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan waxayna falanqaysay ujeedooyinka loo aasaasay urur siyaasadeed NDP waa urur loogu talagalay inuu insha Allah haddii guuleysto dalkan inta kala dhigan dhamaysto nabad waxaa loo baahan yahay maanta islaamka Somaliland waa si waxay ka dagaalada dhinaca ka socda dimuqraadiyad baynu u baahannahay si loo helo cadaalad siman oo dadkoo dhan iyo gobolada dhammeeya magaalada u helaan iyo barwaaqooda u joogta meelaan nabad jiri barwaaqo ma timaado haddana madaxda Somaliland ee awdal madaxweynayaalaha waddan Cabdiraxmaan Wacaliha noqdeen madax limada ka soo gashay oo hoggaanka soo qalatay oo maxay hayso cagaa u dhigtay intaas waxaan ku sii gaaraya gabadhii aniga iga horreysay ku dhawaaqday inay madaxweyne noqoto taageerada waxaa sidoo kale madashani ka hadlay taageerayaal fara badan oo rag iyo dumar isugu jiray kuwaasoo marka la isku soo aruuriyo hadaladooda ay ku soo biyashubanayaan taageero xoogan ay u jeedinayaan urur siyaasadeedkan NDP oo ay gudoomiye ka tahay Marwo Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan waxay waddanka Soomaaliland waxaan ku soo talinay koobiyo sanadooda oo soo dhaafay waddanka waxaan ogeysiinay gatraaf la'aan shaqo la'aan jidad la'aan qabyaalad iyo ururinta kaleed لو تلقيه طريقة بالشمال المنطقة لما على واحد التاريخ السوماليلاند وهو يريكيو ويهرب القدسية وعلى هاي كل يوم أظن هذا يكبر أو يسمى السوماليلاند socdaalkan ay maanta ku yimaadeen madaxda urur siyaasadeedka NDP waxa uu yahay socdaalkii ugu horeeyay oo Boorama ku yimaadaan tani magacaabidii urur siyaasadeedkan NDP waxaana xusid mudan in urur siyaasadeedkan NDP gudoomiye u tahay haweeney wuxuuna noqonayaa urur siyaasadeedka kaliya oo hogaamiso haweeney ururada siyaasadeed ee Somaliland oo laga dhawaaqay Cabdifataax Axmed Bulsha TV magaalada Boorama ururka samafalka ee Tawfiiq ayaa maanta lacag qalin loogu sameeyay gabadh yar ay madaxa biyo kaga jiraan gudoonsiyay waalidkeed waa kan mar labaad Cabdifataax Axmed ururka samafalka Tawfiiq ee ka howlgala goboladan Awdal iyo Salal isla markaana ka shaqeeya u gargaaridda dadka baahiyaha dhanka caafimaadka iyo dhaqaalaha haystee ku nool goboladan ayaa maanta waxa uu deeq lacageed oo ka soo aruuriyay guud ahaan gobolada Somaliland uu ku wareejiyay waalidka dhalay gabar yar oo madaxa biyo kaga jiraan taasoo xaaladeeda caafimaad wax loogu qaban waayay gudaha Somaliland deeqdan oo dhameed 12,590 bir oo lacagta dalka Itoobiya ayaa waxaa ku wareejiyay Rooda Ibrahim Rijaal oo ka tirsan ururkan samafalka ee Tawfiiq waxayna ka hadashay madashii ay deeqdan ku wareejinaysay waxaana hadaladeeda kamid ahaa agtii gobolada Somaliland meel kasta ha joogaan waa loo soo ururiyay waxa naga dhinaaday lacag dhan $200 waxaana nagu soo caawisay walaasheen Saacada Cabdilaahi Aadan oo joogta magaalada waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Birmingham ilaahay ha ka abaal mariyo iyada iyo intii dhammaan meel kasta joogaan bal la baxay xasanaadkaasi saaka waxaan hooyadii ilmaha dhashay oo ah Salsa Maxamed Ismaaciil ku wareejinaynaa 12,000 riyaal ee dhakhtarku uga baahnaa iyo 590 riyaal oo nooligeedii saakaanan haddii ilaahay u qadaro ay raacaysaa baabuurta Itoobiya u baxaya waxaan ilaahay uga baryaynaa ilmahan yar inuu ilaahay caafimaad sareecana soo siiyo qalliin ay ku caafimaadana ilaahay soo siiyo haddii ay maanta babixi waayaana madaxeegu uu ka sii darayaa uu sii weynaanaya biyihiiba wali ku furan lugaha way ka soo curiyaamaysaa meel kastoo joogtiin ummadda muslimiinta waxaan ilaahay uga baryaynaa inay u soo duceeyaan hooyadaasi ilmaha wadata inuu ilaahay caafimaad soo siiyo lacagtii oo ku wareejinayno hooyadiina waa tan 12,000 ريال وقواس قصة سمسمي عبد الفتاح أحمد بولشة TV مقالة بورما
isku dhacyo sababay dhimasho 2 ruux iyo dhaawacyo ayaa maanta ka dhacay magaalada Qaahira. telefishinka Niil ee dalka Masar ayaa sheegaya in tirada ku dhaawacantay rabshadihii ka bilaabmay agagaarka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Masar ay cagacagaynayso 628 qof halka wakaalada wararka ee Masarna ay sheegayso in ay 2 ruux ku naf waayeen isku dhacyo ka dhacay magaalada Suwiisa ee dalka Masar. iska horimaadyada oo u dhaxeeyay mudaharaadayaasha iyo ciidamada nabadgelyada Masar ayaa ka bilaabmay wadada Balaad oo ku dhadhow dhismaha baarlamaanka Masar waxaana isku dayeen mudaharaadayaashu in ay xoog ku galaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi iyaga oo iscaabin kala kulmay nabad sugayaasha. telefishinka Niil ayaa sheegaya in ay imika xaaladu degan tahay iyadoo isku soo baxayaashuna ay dib uga baxeen wasaaradda. dhanka kalena mas'uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Suwiis ayaa iyaguna sheegaya in 2 qof ay ku dhinteen isku dhacyada u dhaxeeya ciidamada nabadgelyada iyo mudaharaadayaasha. golaha baarlamaanka ee dalka Masar ayaa fadhigiisii shalay cod aqlabiyada ku canaantay wasiirka arrimaha gudaha waxaanay sheegeen in uu wasiirku ka gaabiyay shaqadiisii kadib markii 4 qof ay ku naf waayeen rabshado ay ka dambeeyeen labadii taageerayaal ee kala taageerayay labada kooxood ee Masar iyo Al Ahli oo ciyaari ku dhex martay garoonka Boorsaciid maalintii Arbacadii. duufaano laxaad ayaa ku dhuftay koonfurta dalka Australia. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariye Axmed Deeq Xasan. duufaano laxaad oo ku dhuftay koonfurta dalka Australia kuwaas oo sababay dhimasho 100 qof iyo dhaawacyo gaadhaya kumanaan. koonfurta dalka Australia ayaa duufaanada wata dabaylo xoogan ee ku dhufteen kuwaas oo la leeyahay 10,000 oo qof halka dhimashada lagu qiyaasay 4,000 oo qof. ciidamada militariga Australia ayaa ku hawlan sidii loo soo baadhi lahaa isla markaana loo soo saari lahaa meydadka ay daadku qaadeen iyo kuwa guryaha hoostoodaba ku jira. gobolada duufaankan uu ku dhuftay ayaa dadkii deganaa guryaha guudkooda u baxeen. duufaankan oo sii kordhaya ayaa waxaa la joojiyay isku socodka gaadiidka u soo gelaya gobolada koonfurta Australia. duufaankan ay cilmi baadhayaasha cimiladu ku sheegeen duufaankii ugu khasaaraha badnaa nus qarnigan la soo dhaafay iyadoo biyaha wabiyaduna gaadhayeen meel aad u sareysa. qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan dalka Argentina ayaa dibadbaxyo ballaaran sameeyay kadib markii amiirka iskala dhaxaltooyada dalka Ingiriiska uu gaadhay jasiiradda la isku haysto. faahfaahinta warkan waa kan Maxamed Shiciir Ahmed. dadweynaha dalka Argentina oo isku soo baxay ka wada caasimada ee xarunta dalka Argentina kadib markii ay boqosho 6 cisho qaadanaysa ugu soo gaaray amiirka dhaxaltooyada boqortooyada Ingiriiska Mr William kaas oo soo gaaray jasiiradda ay isku haystaan Argentina ee Malawi dhulkaas oo muddo 30 ay xukumaysay dawladda Britain taas oo dagaalo qaraar ay ku dhaxmareen iyaga iyo Argentina. dadweynaha Argentina ee ku nool gobolkaasi ayaa mudaharaado rabshado wata ka wada bangiyo ay leeyihiin dawladda Ingiriisku iyagoo ka gadoodsan imaanshaha Amiir William. mudaharadayaasha ayaa ku dhawaaqay dooni mayno burcad badeeda William iyo erayo kale oo ay ku diidan yihiin waxayna dalbanayeen inuu iskaga tago dhulka Argentina. si kastaba haatee Ingiriiska ayaa weli maamusha jasiiradda Malawi taasoo ay joogan ciidamadiisa isla markaana madaxda Argentina ayaa doonaysa waqti xaadirkan inay ka wada arrinsadaan iyaga iyo Britain sidii loogu wareejin lahaa dhulka jasiiradda Malawi. qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay soo afjartay macluushii ka taagnayd koonfurta dalka Soomaaliya. jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa daboolka ka qaaday in duruufihii gaajo ee ka jiray gudaha Soomaaliya ay soo dhamaadeen taas oo 6 bilood ka hor bilaabantay. waxaanay intaasi ku dartay in Soomaaliya sanadkan beeraha dalaga uga soo go'aya iyo bulshada caalamka oo taageero laxaad leh u soo fidisay Soomaaliya kuwaas oo caawimo dhan kastaba ah soo siiyay. balse jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa ka digtay in ay mar labaad soo noqoto xilli ay wadamada geeska Afrikana ku jiraan engeeg fara badan oo ka jirta dhulkooda. waxaanay sheegtay qaramada midoobay in 3 meelood oo meel dadkaas ku nool Soomaaliya ay wali ku tiirsan yihiin taageerada bulshada caalamka. wasiirka tamarta ee dalka Ingiriiska ayaa iscasilay kadib markii xaaskiisu ay jabisay xeer ka mid ah xeerarka u yaala wasaaraddiisa. faahfaahinta warkan waa kan mar labaad Axmed Deeq Xasan. wasiirka wasaaradda tamarta ee dalka Ingiriiska ayaa iscasilay kadib markii ay saxaafadda dalkaas eedeymo u soo jeediyeen xaaskiisa inay jabisay xeerka u yaalay wasaaraddiisa. bayaan uu soo saaray wasiirku ayaa uu ku sheegay inaanu wax dambi ah gelin isla markaana waxa uu iska fogeeyay eedeymaha loo soo jeediyay markii uu la hadlayay saxafiyiinta dalka UK. kaniisadda dalka Ruushka ayaa shacabkeeda ugu baaqday inay isku soo baxyo sameeyaan kadib markii dalka Ruushka uu ku dhuftay qabow saayid ah.
faahfaahinta warkan waa kan Cabdiraxmaan Ilkacse. kiniisadda dalka Ruushka ayaa ugu baaqday dadweynaha dalkaasi inaanay sameyn isku soo baxyo kadib markii mawjado qabow ah ay ku dhufteen guud ahaanba dalkaasi. mucaaridka dalkaasi ayaa ka dhaga adeegay dhawaaqa kiniisadda iyaga oo ku howlan qabanqaabada isku soo baxyo ballaadhan oo ay sabtida qabanayaan xubno firfircoon oo mucaaridka ka tirsan oo ku labisan koodharka cagaarka ah ayaa iskugu soo baxay wadooyinka Moscow kuwaas oo qaybinaya waraaqaha isku soo baxyada. dalka dadweynaha taageersan xisbiga talada hayaana u soo baxeen qabowga waxaana iyaga oo qaybinaya tigidho ay ku taageersan yihiin musharaxnimada jagada madaxtooyada dalkaasi ee Vladimir Putin. mucaaridka dalkaasi ayaa dalbanaya in xukuumadda talada iska wareejiso kuna wareejiso komishinka doorashooyinka si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. si kastaba ha ahaatee dalka Ruushka ayaa dhawaan geli doona doorashada madaxtooyada dalkaasi taasoo ay qawadsan yihiin mucaaradka dalkaasi oo xukuumadda ku tuunsan yihiin inay ku shubanayso codadka codbixiyayaasha. warkii oo daawadayaal ka daawanaysan telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV habeenkan caawa waa naga inta warka xiga inta aan ku kulmi doono aniga iyo asxaabtii igala qayb qaadatay waxaan idinkaga tegaynaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.